waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska isbuucan dhexdiisa sidoo maalinta aan yiraahdo Talaadada iyo sidoo kale Arbacada ayaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. berito Talaadada waxay ciyaari doonaa kooxda Crystal Palace ayaa soo dhaweey doonta kooxda Brentford. Fulham ayaa garoonkeeda ku qaabili doonta Brighton. Southampton ayaa martigeli doonta kooxda kubadda cagta Chelsea. Leeds ayaa sidoo kale martigeli doonta kooxda Everton. afarta kulan ayaa la ciyaarayaa maalinta berito oo Talaada ah horyaalka Ingiriiska. sidoo kale Arbacada waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. kooxda Bournemouth ayaa Wolves la ciyaari doonta. Arsenal ayaa Aston Villa la ciyaari doonta. Man City ayaa Nottingham Forest soo dhaweey doonta. West Ham ayaa garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda Tottenham. waxaa ciyaari doona Liverpool iyo Newcastle ayaa ciyaari doona sidoo kale. kulamadaasina waa kulamo la ciyaari doona horyaalka dalka Ingiriiska maalinta Arbacada ah. sidoo kale Khamiista kulanka ugu dambeeya la ciyaari doona waxaa kamid ah Leicester City ayaa garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kulamadaas oo kulamo la ciyaari doono mid weega ama isbuuca dhexdiisa oo ay horyaalka dalka Ingiriiska waana kulamadii shanaad ee la ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska. fadlan haddii aad u baahan tahay inaad ogaatid kala horeynta horyaalka dalka Ingiriiska waxaad booqan kartaa fiidiyoogii shalay aynu soo dhignay oo aan kaga hadalnay sida loo kala horeeyo horyaalka Ingiriiska iyo aan ku falanqeynay sidoo kale kulamadii la ciyaaray maalmihii Axadda iyo Sabtida. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan like saar fiidiyooga sidoo kale si share garee si asxaab badan u gaaro. subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka iyo la socodka channelka.